السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ياسمين واي كسو دو عافيمات فيعن ما أنت مرتي إلى جوجتو ما شاء الله تبارك الله. لبضان قفة وحي إلى جوجن أبايا زهرة السلام عليكم. إيا أبايا أنيسة وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مريكا عن جوجا مكاني هيجن وحاواي غير كندا ما شاء الله تبارك الله. ما أنت السود وهذا الصومالي ده كانوا حرام أنا الله قيب صدق خوش قروح ذا بدن أهيسين. labadiina waxaa idin dhiibaya microphone-ka in la soo dhawaada. alxamdulilah waad mahadsantihiin sharaftaad nagu soo dhaweysay aad baad umahadsan tahay sidaad u sheegtayna maxay haydee waa bil khayr qabto bisha ramadaan marka waa bishana waa bisha khayr la shaqaysto khayrka lagu dadaalo oo camal kastaad samaysid maasha allah tabaaraka allah uu sii badanaya وسي بدنايا صح الحمد لله رب العالمين aad baad mahadsantihiin dadkeena maraykanka north america joogana dad walaalo oo isku xiran oo markuu mid ka kala u baahdo kala oranayo way waan ku taageeraya maxaad u baahan tahay wad kaliyaan wadanahay haddaan sidaa la iskugu noqonin gacan kaliya waxba ma sabcin karayso صح marka sahlan u dhiibaya alxamdulilah aad oo maasantahay invitation aan samaysay in maxaa la yiraahdaa aan ka hadlayno meeshaan marka ku maasantahay aad oo maasantahay sakula alxamdulilah marka ani waxaan soo ogaaday maasha allah hoor inaad ku jirtiin oo masaajid ah maasha allah tabaaraka allah oo community Soomaali ah iyo dad kale oo muslim dhan isla wadiin nala qaybsada hooshiina sida aad ku bilowdeen iyo xaalka hadda sida ay marayso حال مساجد كوحو وحويان ومساجد عقيبة له إلهي إن شاء الله وحن رجينا إنا مالين حنقد نوبت معدان أنا لا أركتان وحنا جهد إنت كندا وحن شوي لبا يلا باتن سنة ما شاء الله وح مسجد عين كانوا community والله سبحانه وتعالى مركي وان صومنا هاي إله باركيا ما أرق وحويان شيخ حمدي بن عيسى يا أنتي شيخ ناس كريم وحويان ضد ما شاء الله دينتا فيجنري يعني أرد كود ميل كاركو صح هاي لبضب ما هذي إن بدن دينتا صوب برتاي ودي ضد ما شاء الله علمك إلهي علم القرآن كبير هاي سيء مركا مش وحويان ميل and aad u khayr badan masaajidka masaajidada kale ugu duwan yahay waa meel diinta kugu beeraysa maha diinta kugu beeraysa si jacayla oo caruurta yaryar sheekhu inta uu la hadlayo uu soo dhaweynayo dadka yaryar aad arkayso ilmo yaro 5 jiro maanta 10 jiro oo diintii ma doonayeen in masaajidka maalin kasta tago ما شاء الله ما شاء الله شعيلك يعني عروية يرو نبيك كوصل يسا يعني عروت سهرة يقصي قرن يسا سهرة نقولي بيا على المتينيج الله عليها يعني الدوي كانت الحمد لله مساعد ير لكن سيرفيس قبت آدي أو بديني إن الله مستعان إن محل هذا دوي أنا أهان الصومالي هان وحبرنا إن different way يجن وحبران ما شاء الله waxay u baraan anaga waxa u malaysaa inaan order dhiibno laakiin iyagu waxay u baraan as daway wax u baran karaan ciyaalkan oo wadankan oo kale صح aan la dilgareynayno in bando ciyaalkan Soomaaliyiin at the same time waa ajnabi صح waa in loola dhaqmaa sida oo yani mentality-good ay qaadanayso marka fiqh masaajidkan Allah xifdiyo waxa waaye wuxuu yani mentality ciyaalka oo aad u xaday ما شاء الله marka Soomaalidana horta masaajidka mostly daway wax u baraan waxa waaye horta waxa naga maqan anaga hadda runta ka hadalno waxa naga maqan waxaan barnaa ilmaha quraanka waa barnaa aqoonta waa barnaa wax walba waa barnaa laakiin waxa naga maqan inaan barno jaceelka rasuulullah sallallahu alayhi wasallam صلى الله عليه وسلم صح jaceelkiisa aad iyo aad noogu maqan darsa xadiis oo na dhahayo Umar ibn Khadaab laga wariyo oo dhahayo waxa la dhahayaa rasuulullah waxa ma ka jeclaa nafteeda markaa ورسولكم ويري عين حالها فيت كاس معقولين marka meesha waxa ka garanaysaa ka fahmaysaa in yani jaceelka rasuulka doonanga maqan yahay in diinteena ay complete ahaan
صح especially ciyaalkeena waxaan leenahay follow gare step rasuulullah sallallahu alayhi wasallam in wuxuu sameey at the same time in qofkay follow garanayo wuxuu yimi yaqaano jecel ma u hayaan yani film ma jiro الناس waxa ka maqan in ciyaalkeena uu ka maqan yahay iimaankooda inuu complete ahayn صح in order iimaanku complete uu noqdo marka Allahu musta'aan marka sheekhan wuxuu baraa sida u barnaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam jaceelka sida u qaad si ciyaalkeen u barnaa صح ilmaha markii iskool kidgaar ay bilaabayaan waxa loogu bilaabaa si iskool ku jeclaada inay heesaan inay wax qoraan iyo wax beenti karayaan so wax loogu bilaabo inay wax bartaan oo yaani wax xafidaan ima loogu bilaabo reason waxa waaye series kala socda in la jeclaysiyo si u soo galaan صح رحمة على بركة الرحمة ده يجعلك exactly so sheekhan waxa waaye wuxuu baraa even language ka yaqaaneen Allah ka dhig French Allah ta'ala ka dhig English Arabic wuxuu noqdo he translate wax walba wuxuu ku sameeyay soo u bar lahaa يعني luqad si u fahmi lahaayeen oo dhigay meesha waxa imaanaysa inay feeling u qaadaan it's not only يعني inay barnooyin feelna meesha iska bilaabanayo صح markii feeling oo imaado jaceelku imaadana is easy inuu يعني food step rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ay follow garayaan and rasuulullah sallallahu alayhi wasallam food step kiisana will lead us to jannah صح marka one of the thing the main thing oo sheekha baraya as songs are nashiidas waxa waaye Allah musta'aan da weygaas ciyaalka u soo jiita oo ku baraa digriga oo badiyaa صح aniga as heesa u naqaan ala to be honest waa digri qiimo leh oo yani ka hadlayo jaceelka rasuulullah sallallahu alayhi wasallam kulli all of them waxsan ka hadlayo marka ilmaha qalbigooda aad u soo jiitmaa ما شاء الله ما شاء الله إله المها نوبة بادي ميل الله ماشي نجيب نبأ سبحانها المي ودمضة أنت كأني أيجي أنا قلت تجين مركز لنا محاد عي مركز أنا أهانا يعني أبيني كي قدام كده يبتو أنا فكره يعني إيمان كود كومبليت معها وحنا نحط فولو جريل هاين يعني جعل كي قادم هاي feeling كي love كي صح صح وإلا تسأل مهي هذانا markii la tusaayo way ku soo dabagelayaan like hadaan la tusin oo la barin si ku ogaanayaan ba marka hadaan la heeso xafidayaan waxay always hees wax xafidayaan hadaa tan u diidid oo yani oo saada u diidto kale xafidayaan oo yani oo maxal a lot of foreign language ku jiraan صح no matter how hees hadaa diidid xafido in ciyaalkan ha ma sha Allah that's true wallahi run ma sha Allah ina ku barno this way and said can is that one of the main thing or يعني or rabo waa inuu youth future ka ciyaalka oo soo saaro very important waa arin weyn same marka ani waxaan rabaa dadka subscriber-kayga ee channel-kayga oo ila socdaan waxaan rabaa inaan maanta aan la qaybsano saddexdeennaba sida masaajidkiina la idinkugu caawin lahaa oo mataqaanaa sababtoo ah hadda waxaa marowsiin half camal in si u dhisatiin meel adinka aad leedihiin oo ilmahaas oo hooshiina diinta ku sii wadatiin see marka maxaa hadda hadda masaajid aad leedihiin meel rent rent oo ijaara marka nin ilaahay ha soo hadeeyo insha Allah bidna qalbigiisa raxmad ilaahay ha u furo ay ka kareysteen marka meesha waxay doonayeen inay waxay moodeen inay iibsanayaan hadii ilaahay ka dhigo wax kasto ka jawaab ayagu baa sameeyay asaguna ku lahaa iska sameeysta meesha idinka iska ana idinka iibinaya bana ninka wuu bedelay marka waa ka inay meeshii qurxiyeen oo meeshii dad badan imanayso meeshii ishii dadkii ay soo jiidateen aad ayuu yiraahdeen meeshii ma iibinayo rentkiina 30% baan ku daraya okay marka sheekh wuxuu yiraahday waxan wax investment ma aha صح dadkiina ma sha Allah way maalin kasta dad baan u imanaya waxyaabaha masaajidkeena waxa weeyaan wax kasta waana yani ma sha Allah nadaafada masjidku wax waana non profit organization maaha wax always waxa ka yimaada umadu hadana dib ugu celinaya dadkeena ilaahay khayr siiyo صح waxa weeyaan art wax kasto ilaahay la sameeyaa wax kasta yani waxyaabaha dadkeena muslimka ka tageen inta badan waxa weeyaan wax kasta aad sameeysid you have to do it in an art form صح you have to do it in a beautiful form you know صح. It's not
it's not maaha inaad iska sameynaysid wax waa inaad si qurux badan oo ilaahay yani subxaan Allah markaan salaada galayno waa inaan si qurux badan u safno صح marka taasna waa taasna maasha Allah waxyaabaha masaajidkan uu maasha Allah masaajiddeena kala kaga duwan yahay masaajidka insha Allah inta badan waxa weeye waa meel beer oo dhir lagu beero صح ciyaalka Zidni school waxa jira Zidni Ilman school صح yantayda waxay kuwii iyo zaare ciyaalkooda kuwii ugu horeeyay ee taga ما شاء الله markay quraanka ama iyo dhikriga iyo anaashiidka iyo quraankooda bartaan beerta imanayaan ku ciyaarayaan games oo sameynayaan dhir bay beerayaan sida dhirta loo beero صح oo hadhowto marka cunaday sameeyeen bay wada sheergaranayaan ay wada cunayaan ما شاء الله weligii maan arag geed hoostii bay dhikr ku sameynayaan iyo yani wallahi alcadiim aniga markaan dhigani jiray markaan quraanada dhigani jiray daysna baa la noo jiray gala ما شاء الله ya صح sidii campfire-ka waxyaabaha iskuulka ku soo arkayaan ayaa campfire xagga dambe looga sameeyaa ciyaalka ما شاء الله ما شاء الله yani wallahi dad macallimadii waxaan kasta fadhidaa way wada hareeraha صح hayday sidii cambigoona kala weeyaan والله العظيم inanteedu maalin kasta wallahi waxay ku tiraahdaa hooyo gormad mashaakidka ay geynaysaa maalin kasta qurux ما شاء الله maxaa kaaga qurux badan صح يعني مساعدك واهير لكن السيرفيس كاسمين aad u badan yahay Instagram-ka aan kala socdaa hooshiina maalin dhaweyd waxaan arkayay brother oo qodaayo dhulka ilmahana wax abuurayaan I saw that ما شاء الله اسمها حتى هبينك كان فاير سمينايان قصص of the stories of the prophet waxaa laga sheekeynaa Allahu musta'aan ii sheeg yani sida friends ku sameeyay leeyahay Abu Bakr Siddiq iyo Rasuul Allah sallallahu alayhi wasallam relationship-kooda yani friends kooda soo yani waxaa la baraa ciyaalka wisely si u jus gareysan lahaayeen صح صح life skills because the main thing waa friends waxa oo yani dhibka naga soo gaarayo yani si u jus gareysan lahaayeen not only that waxaa looga sheekeynaa yani sheeg quraanka qisooyin ku jiro kale inta lagu sheekeynaa ina mood fiican oo yani campfire loo daaraa yani ilmaha mentality ilmaha wixii ay fahmayaan si wax yani u galay oo kala looga sheekeynaa not only that ciyaalka in yani wax loogu sameeyo anaga xataa loogu sameeyo yoga loogu sameeyo meditation loogu sameeyo oh I love it Abai I absolutely have respect for meditation and yoga subhanallah subhanallah sister ana loo quraana ku barana يعني a lot of things was not imagine يعني سو ساعه يريا هدينا مد وين هدي قاعده more service كانوا imaanay service كانوا بدناي صح صح we need a non-profit non-profit organization ويان the more يعني big space أهل the more service كانوا بدناي إن شاء الله تعالى يلا سبحان الله بإذن الله Somali waxay tiri hal far fall ma dhaqdo like this one finger cannot wash my face hadda waxaan weydiisanaynaa Soomaalida dadka walaalaha ila socdaan oo fiirsanayaan fadlan Ramadaan waaye sadaqa baxsada siiba sadaqada markaa baxsato oo guri Ilaahay la dhisaayo isku day inta ajirkaa soo gaarayso ma sha Allah tabarakallah weydiisanayn waa duco inta dhacdo raadna Yasmin waxay ku weydiisanayn waa duco iyo wax adiga meel ku yaalo waxaad aad meel ku yeelato mara u baahanay aabaha baad la bixi karaysaa isna wax iga qaadano jabka ay gashanooyin ma aha exact صح ha masaajida u jeedid la dhisaayo ha masaajid la dhisaayo ilmahana noogu badbaadaan ilmo yar yar oo ku dhahay hooy masaajidka goormee aadeynaa ruuxaas arag levelka waxa waay marka cunugaaga isku mid iska dhigteen oo waxa uu jecel yahay waxa uu sameeyna oo wax kasta farxad lagu baraayo iyo raxmo lagu baraayo cunugu wuxiisa wuxuu leeyahay aniga hal igu ciriye meeshii ma sha Allah يعني 10 to 5 minutes oo jira ciyaalkayga they just walk waa soo baxayaan subhanallah tasocona mama jacayl Abai ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah aniga waa sugi lahay horta inaa imaado August waxaa qabtiin gathering camping yeah we have camping you should come with the family inshallah that's the one and Sabrina to stay Sabrina iyo ninkeedii hal cunug ay leeyihiin waxay rabaa inay imaadaan ani Isaalixna afar yar yar aan haystaa inaan imaano soo waa soo xiriir Instagram-ka
way ii sheegtay way ii sharaxday habka iyo waxa ay yihiin I am so excited markii aan masawirada arkana gabdhihiyo boatka wadaan waxaan dhahay this is lovely. It's amazing. markaas haddana waxay tiri it's like the setup xajka oo kaleeto waayaa la dhahay gabdhaha la seexanayaan aabayaasha iyo wiilasha waxaan dhahay this is nice we need it marka waa ku tala jiraa inaa imaado insha allah iguna duceeyey inaa imaado because it will be a gift from Allah subhanahu wa ta'ala inaa idin imaado insha allah marka linkigana waa qaadayaa qof kasta YouTube waxaan gelinayaa channelkayga meesha commentiga fartiinta dadka igu dhaafaanna waa gelinayaa descriptionkana dadka waa u gelinayaa sida ay mataqaanaa ay donation u soo biyaan Soomaaliya sadaqada aan baxsana sidaha gabdhaheena Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ka soo hadlay wuxuu yiri naagahayna waxaan u badannahay naarta marka waxaan u baahannahay in anagana duceysano siiba waqtiga ramadaanka uu jiro duceysano afkeena inuu ilaahay noo ilaaliyo nimankeena jannada aan ku galeyn inuu ilaahay jecelna dhex dhigo gabdhaheena badanaa waxaan aruurinaa jijimo faraantiyo markaan dhimano waa ka tegaynaa marka guriga ilaahay hadda aan dhisano Soomaali aan isla wada dhisno masaajidyaal badan ay Soomaalida soo dhiseen maasha Allah marka maanta abaayooyinka abaay Zahra abaay Aniis waxay noogu imaadeen in aan sadaqadeena baxsano oo markasta noo socoto maasha Allah tabaarakalla aad iyo aad weyn aan horta ugu faraxsanahay hawsha ay haysiin anoo Instagram saas ula socdo markasta waxaan dhahaa Canada by 9 hours waxay ii jirtaa Toronto few hours from there adinkana ka tiin maho 5 saac 4 saac amala ka sii tihiin marka waa fiiriya adresskiina waxa dhan waa soo fiiriya hadda ka hor marka waa tala jira insha Allah ii soo duceeyo anigana inaa imaado adinkana ajir weyn Allah idinka siiyo amiin ya baayo dad badan Maraykan idinkaga imaado maho waa soo socda insha Allah anigana waxaan rabaa inaan ku soo biiro I want to be one of I want to sit next to you guys waxaan rabaa inaan idin la fariisto insha Allah ano ilmahayga wato ilmahayga isku wada fadhiyaan waa waxayba tahay gift weyn abaayo ajir Allah idinka wada siiya adinka dhanna anigana channelkayga waa soo dhigaya waan hadda waa record gareynoonaa weli Soomaaliyay fadlan nimankiina gabdhihiina dhalinyaro qof kasta $1 haddaa dhigto uu ku sii badanayaa $100 haddaa dhigto waaba ka sii weyn tahay $1,000 waa sii weyn tahay meel waxaa la dhisayaa oo faamiliyadan ilmaheena siiba wixii ilmaheena waa inaan mataqaana we must sacrifice abaayo ilmihii not only يعني رجال وحواي إن دكاترة فرتان إن يعني فيزيوثيرابي فرتان إن الله المستعان إن mental health يعني فرتان إن seniors محل ده الله المستعان إيش senior place هذا واحد جرا ميال هالكنا ضد صوماليا إسلام صوماليا نقول هالكنا لو هاي ميال لو يلاليو كوب شاه ما يستم قف شاه نبي دونه يعني لسيو قالوا مش موسمين إنسان ما إسلام بقول لسه واحد مركز ديسي وقال لسه شاه إيه كنا مسكين حواش صومالي لو قلت رأي مركز وحيابها سكله وين لقسي فكرة لأن people are aging you know people are aging but the same time مرة بندق يعني إن nursing home قلنا بايو waxaan doonaynaa meel muslimiin oo de culture-koodii diintoodii wax kastaba lagu hayo sax hadda waayeelada markii dadku soo daqooban anaga mataqaana in few years markaan daqoon inta meel waalidkeenu ku soo tuurno ama anagana lagu tuuro musqushiyaana dhaqaayo qanziir maa nala siinayaa salaadsi ku dukanayna marka hoolahaasna waa inaan ka fakarno ilmi yaryarayna aan badbaadino dadka waayeelada waalidkeenu kaleetana aan u helno wax nabada oo diintoodan ay ku sii dhaqmayaan oo mataqaana caafimaadkoodan ku saabsan iyo their well-being insha Allah ta'ala يعني إفسين هم كمان وح على الإسلام هيك سوريان قف على القف اللقدتي يعني أوراديان ما شاء الله ما شاء الله وحنا كهلا بس إذا ما تقانا كلو نوع تهين أو سكوا ذا حرن تهين somebody asked me the other day is this the Somali community or Arab community and I was like it's really hard it's like it's everything it's like so many nations coming together so many cultures so many languages like
That's what Islam is about. Islam is about the whole. It's a. And one thing that I want to tell, there is a beautiful class that Sheikh Hamdi provides online. Everything we do is online. There is an online stream, and also Ansi Shahnas Kareem. She has a beautiful class called Journey. Fox, it's a journey, and it's on Thursdays. Okay. After 6 o'clock usually, like it changes because of the time changes. But summertime usually it's like around 6:30. Okay. And it's called and from Sheikh Ustada Ansa Kareem. عندي أصلاً وكسمين ويا هذا بشهر رمضان قرآن translation كسوش حلا وبلاوي every night except Friday and Saturdays. The rest was بعد رمضان 2 times a week وسمين هذا الله. ما شاء الله. And you guys all the time about وح Instagram كأركي all the time وح قبتين some kind of activities وح there is always activity. ما شاء الله. Yeah. And the masjid, we have the masjid, we have the garden, and we have a bookstore, cafe, a book. Yeah, we can. This is the cafe. This is the cafe and a bookstore. And also it's like a mini kind of. They have healthy food, healthy snacks. MashaAllah. So you can come here, sit down, read a beautiful book. Bring friends, and so it's always there's something going on. And this place, workshops. Oh my goodness. Yes, it's like such a gift. It is. It's a good way also the sisters to get together and socialize because we need that. And non-Muslims, and we have a lot of non-Muslims that are come here. We must do dawah. It is. That is the alhamdulillah. MashaAllah. I love it. سبحان إلهي سبحانه وتعالى وحا إذا كنت توقعيا مساجد كينا إنو متقانا أقدتين إن شاء الله آمين سيدا الله سيدا أجعشهين معركتين وإلهي متقانا إذا كسر شاور قري وسفي عن إذا كوسا ما يوفضت وحاجوكتين وقتك وانا قدوذهين وانا صور ديرتهين ولي إن شاء الله لك وإيماني سا وحي الله سو دذالو الله هلايا ما شاء الله سوماليا دوني قرية لعكتا آخر غورينا أقرح بدن أنتجينا إن شاء الله آمين جزاك الله خير أبايا I'm so excited وحم بفرح سنة هبو this is the cafe هذا I to stand ما شاء الله this is the Lotus Cafe معنا دويتا وحدا إنستغرام كو أركاية يكو سحور للسماية overnight oats iyo muffins iyo waxbaa la suubiye Instagram ka soo gala aan dhahay this is the cafe. It's so nice. Yeah, if you have 2 more minutes, I can show you the place. Yes, I have a minute. Thank you, Abai. MashaAllah, tabarakallah. Kuwan waxa weeyaan waa bugaagta very well. Bugaag Islamic code anything about health, about mental health, and spirituality, food. Yeah, bugaag caruurta qayb caruurta. صح. halkan waatan halkan waxa weeyaan meeshan halkan waxay hayaan malab xabata sawdaha healthy snacks cake laga sameeyay timir maasha waa halkii kitchadii صح beertana waan ku tii halkan waa coffee espresso your espresso machine and this is the garden Somali. Yeah, waxa weeye halkana waxa weeyaan meeshii koofiga laga cabayay. صح. halkana waa garden. Oh, mashallah. This is the community garden. صح. There is 2 beautiful sisters right there. Assalamu alaikum. Yeah. It's beautiful. It is beautiful. halkana waa tent. usually Ramadan markii daba meesha dadku badan yihiin ba halkan ku cashayaan ama ku afuraan iyaga ku ciyaaran marka alhamdulillah waa sida MashaAllah Abaya it's beautiful Abaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa idinkaga tusaaya inuu idin saa'idiyo amiin ya rab waa ramadaane oo roob iida ay Ilaahay ducadeena ha noo aqbal Abaya this is beautiful
codkiina ma maqlaayo banaanka waaya u malaynaya codka haa soo gala maasha allah maya weli idma maqlaayo wax yar maybe soo dhawaada meesha fadhisayn oo kale mi maqlaysiin aniga ma maqlaayo iyaga haa oh you know you're in mute it says you guys are in mute codka xirteen look at it it's mute mute utusaya hadda idin maqlaya yes alhamdulillah abayo jazakallah khair labadiinaba aad iyo aad u weyna mahadsantihiin and the video I will put it was so daynaya jazakallah assalamu alaykum Zahra assalamu alaykum ya Anisa gabadha